Assalaamu calaykum channelkay kusoo dhawaada insha Allah maanta waxaan i tusaa sida aan u suubsado shurbo oo aad u macaan badan oo laga suubiyay boorashka. Baanta hal xabo basal laba qaado xawaaji, hal qaado cusbo, laba xabo tuun, kabsar caleen iyo hal xabo yaanyo. yaanyada waa optional hadaa rabtid oo ku darsane hadaa rabtid waa ka dhaafee insha Allah. I like mine with tomatoes. Bismillah, hadda waxaan ku shubaa saliidii. Ay soo kulaato basashiyaan ku daraa. Marka waa kaas isku walwalaaq. Basashii iyo saliid kulaalka. Marka sidaani ku soo baxee diyaar waa almost. Then waxaa ku dareysaa tomatoeskii. waa kanay tomatoeskii ku daray hadda. Adi 3-4 minutes later saan isku walwalaaq and then waxaa ku dareysaa xawaajigii iyo markaas waxaa ku dareysaa saan markaas kula cusbadii ku daray iyo tuuntii iyo kabsar caleenta. Masha Allah caraftiis waa biyaabay masha Allah. Marka diyaar noqoto waxaa ku dareysaa hilib arigii iyo maraqiisa oo isku karsanaay. waa ka saani ku soo bixiyay insha Allah. wax yar markay soo karkarto maraqa waxaa ku dareysaa insha Allah 3 cups of mushaaridan boorashka. waa kaas 3 cup saan isku walaaq. marka hadda dabkiya u gaabineysaa insha Allah ilaa isku soo karkarto si fiican oo karsamo. daboolkiisa saare 20 minutes later saani ku soo baxay insha Allah. masha Allah ma laga sheekay karo caadi maaha. waa kaas diyaar waa hadda. taawada kale waxaa saarnay hal xabo basal jarjaray wax yar xawaaji yar ku taawane iyo cusbo yar. waa kii shurbada kor laga saarayay insha Allah. waa sidaani ku soo baxay wax yar ku hay dabka ilaa ay ka gaduudato. caraftiisa bakayaabay masha Allah. waa kanay diyaar waaye. marka hadda waxaa la saaraa basashii hadda inay tusay oo gaduudatay iyo markaas waxaa saaray kale wax yar kabsar caleena kor ugu shubay. waa kanay oo dad basal jecleena jira marka waxaa u saari kartaa kale cheese or any topping oo jeceshahay. marka insha Allah cheese kan aad ugu fiican yahay. asoo kuleel waa kaas melt isku noqday. This is the finished product. I hope you like it. insha Allah subscribe isara share gareeya like